waxaa jiray addoon ku caanbaxay beenta, waxaana la yaab leh inuusan sheegi jirin wax ka badan hal been ah sannadkii. hase yeeshee beentaasi waxa ay qasi jirtay adduunka oo dhan, waxayna u soo jiidi jirtay dhibaatooyin fara badan mudanaha addoonkaasi. marmarka qaarkood dhibaatadaasi waxa ay soo gaari jirtay xitaa deriska, ilaa magaalada oo dhan ay saameyn ku yeelato beentaasi. waxaa la odhan jiray kaafuur. cilladaasi awgeed kuma uusan daahi jirin mudano walba oo iibsado. mudano walba waa uu iska sii iibin jiray markii uu adkaysan waayo dhibaatooyinka uu geysto. mar ayaa waxaa soo iibsaday ganacsade magaalada caanka ah, hase yeeshee dhibaatadiisii ayuu u adkaysan waayey. waxa uuna go'aansaday inuu iska sii iibiyo si uu uga soo kabto dhibaatada ay u geysatay beenta uu sheegay kaafuur. waxa uuna aaday halkaa iyo magaalada si uu iskaga sii iibiyo. markii uu keenay suuqa lagu iibiyo addoommaha, waxa uu ku qayliyey, yaa iga iibsanayo addoonkani anigoo u sheegayo ceebtiisa. si lama filaan ah waxaa xaggiisa soo aaday nin ganacsade ah. waxa uuna yidhi, maxay tahay ninkani cilladiisa? waxa uu yidhi, ninkani waxa uu sheegaa hal been ah sannadkiiba. ganacsadihii waa uu qoslay, waxa uuna yidhi, hal been ah sannadkiiba ma dhib ayay leedahay? waxaa muuqato inuu ganacsadahani ku cusub yahay magaalada, uusan war ka haynin dhibaatada ay keeni doonto halkaa beenta ah. war iyo dhammaantii ganacsadihii maskiinka ahaa waa uu iibsaday addoonkii beenaalaha ahaa. lacagtiina waa uu bixiyey, waxa uuna la aaday halkaa iyo gurigiisa. hase yeeshee waxa uu saxiixay heshiiskaasi waxa uu dhigayaa inuu ku iibsaday addoonkani isagoo og cilladiisa. wixii dhibaato ah oo ka imaadana mas-uuliyaddeeda uu qaadi doono. waxaa kale oo ku xusnaa inuusan ceyrin karin ilaa uu ka dhammaysto halkaasi beenta ah. ganacsadihii maskiinka ahaa waxa uu u iibiyey addoonkiisa dhar cusub oo aad u qurxan. sannadkana dhammaanshihiisa waxaa ka dhinnaa bilooyin yar oo keli ah. addoonkiina waa uu sugi la'aa inta uu ka dhammaanayo sannadkani. waxaa dhashay sannadkii cusbaa, waxa uuna ahaa sannad khayr leh. ninkii ganacsadaha ahaa waxa uu sameeyey faa'iidooyin aad u badan, waa uuna farxay. maalin ayaa waxa uu go'aansaday inuu asxaabtiisa uu la wadaago farxadda. waxa uuna weliimo weyn ku dhigtay beer uu ku leeyahay duleedka magaalada, waxaana u adeegayay addoonkiisa kaafuur. waxayna u baahdeen cunto dheeri ah. waxa uu u yeedhay addoonkiisa, waxa uuna yidhi, orodoo aad guriga oo inoo soo qaad cunto dheeri ah. kaafuur isla markiiba waxa uu ku booday faraska mudanihiisa, waxa uuna aaday halkaa iyo guriga. kaafuur waxa uu ahaa mid aad ugu xiisay beenta, maxaa yeelay waxaa ka soo wareegtay sannad dhammaystiran ilaa iyo inta uu sheegay beentiisii. waxa uu naftiisa u sheegay inay hadda ku habboon tahay inuu beenta sheego. markii uu u dhowaaday guriga mudanihiisa, aad ayuu u qayliyey, waxa uuna jeexjeexay dharkiisa. waxaa ku soo wada orday dadkii hareerihiisa joogay oo dhan, waxayna weydiiyeen waxa ku dhacay. qaylidiisa waxaa maqlay xaaska ganacsadaha iyo gabdhihiisa, waayna soo ordeen.
markay arkeen addoonkoodii Kaafuur oo xaaladani ku sugan, aad ayay u yaabeen, waxayna weydiiyeen waxa dhacay. Waxa uu yidhi isagoo is-oohinsiinayo, waxa inagu dhacday dhibaato aad u weyn. Waxaa wada fadhiyey mudanahayga iyo asxaabtiisa, waxaana ku soo dumay geed aad u weyn, dhammaantoodna halkaasi ayay ku geeriyoodeen. Markii aan arkay waxa dhacay, waxaan ku soo booday faraska mudanahayga, waxaana soo aaday halkaayo dhankiinna si aan idinkugu sheego waxa dhacay. Markii ay maqleen xaaska iyo carruurta ganacsadaha, oohin ayay la dhaceen. Xaaskii iyo carruurtii waxay aadeen halkaa iyo guriga si ay u dhammaystirtaan oohintooda. Xaaskii waxay bilowday inay jijibiso alaabtii guriga taallay iyo xitaa gurigii. Waxaa muuqato inay ahayd mid doqon ah, maxaa yeelay ma aysan hubsanin. Alaabta ay jijibinayso waxa ay soo dhigaysay halkaa iyo laamiga. Shaqadii ayaa ku adkaatay, waxayna u yeertay addoonkii Kaafuur ahaa, waxayna tidhi, halaag ha kuu sugnaadee ee ila jijibi gurigaani. Waa uu ka caawiyey jijibintii guriga, waxayna u jijibiyeen si arxan daran. Kama aysan soo reebin guriga wax manaafacaad leh, alaabtii oo dhan, xitaa gurigii waa ay jijibiyeen. Xaaskii iyo carruurtii way ka soo baxeen guriga, waxayna ku tidhi Kaafuur, ina horkac oo ina tus meesha uu ku dhintay mudanahaada. Waa uu horkacay isaga oo saaran faraska mudanihiisa, waa uuna ooyayay, wuxuuna ku celcelinayay, maxay tahay musiibadani nagu dhacday. Dadkii gadaashiisa socday ayaguna way ooyayeen, waxayna ku celcelinayeen hadalladiisa. Waxaa la socday dadkii magaalada oo dhan, yar iyo weyn, rag iyo dumar. Xaaskii waxaa talo u soo joodisay mid ka mid ah dariskeeda, waxayna tidhi, waxaan samaynayno wax fiican maaha, waa inaan la socodsiinaa waaliga si uu noogu soo daro dad caafimaadka yaqaano haddii ay jiraan wax dhaawac ah si ay u caawiyaan. Xaaskii waxa ay tidhi, waa fikrad fiican, waxayna soo aadeen halkaa iyo waaliga. Laakiin Kaafuur waxa uu aaday halkaa iyo beerta, isagoo ooyayo, dharkiisana ay jeexjeexan yihiin. Ganacsadihii markii uu arkay xaalka uu ku sugan yahay Kaafuur, waa uu argagaxay, aad ayuuna u naxay. Waxa uuna weydiiyey waxa dhacay. Wuxuu yidhi Kaafuur, markii aan tegay guriga, waxaan arkay gurigii oo dumay, waxaana dhintay dhammaan wixii ku wada jiray guriga. Ganacsadihii waxa uu weydiiyey inay dhimatay xaaskiisa, waxa uuna ku yidhi, haa, waa ay dhimatay xaaskaada. Dhammaantoodna waa ay wada dhinteen. Waa uu ooyey ganacsadihii, waxa uuna yidhi, gabadhaydii yarayd may dhimatay, tan yar iyo tan weyn iyo tan dhaxaba, dhammaantood waa ay dhinteen. Oohintii ayuu laba jibaaray ganacsadihii, waxa uuna yidhi, war ka warran baqashaydii. Wuxuu yidhi, waxaa ku dumay arigii iyo digaagihii iyo baqashiiba derbigii bannaanka ahaa. Ganacsadihii markii uu maqlay dhibaatooyinkan oo dhan, adduunkii ayaa ku madoobaaday, waxa uuna cagihiisa ku hayn waayey dhulka, waxa uuna ku dhacay dhulka.
waxa uuna ku celcelinayay alla dhibaatada igu dhacday weynaa. Markay arkeen saaxiibadii dhibka ku dhacay saaxiibkood, waa ay la ooyeen wayna la murugoodeen. ayaga oo ku jiro waqti murugo leh, waxay arkeen dad fara badan oo dhankooda u soo socdo, waxaana ku jiray xaaska ganacsadaha iyo carruurtiisa. markii uu arkay inay nool yihiin, waxaa ku soo noqday naftii, waa uuna istaagay, waxa uuna aaday halkaa iyo dhankooda. xaaskii waxay ku tidhi, ilaahay ayaa mahad leh haddii aad nabad qabtaan. carruurtii oo dhan waxay iska laalaadiyeen aabbahood. ganacsadihii waxa uu yidhi, ilaahay ayaa mahad leh haddii idinkana aad nabad qabtaan. sidee ayaad uga badbaadeen gurigii idinku dumay? xaaskii waa ay yaabtay, waxay tidhi, bal adigana aan ku weydiiye, sideed uga badbaadeen adiga iyo asxaabtaada geedkii weynaa oo idinku dumay? ganacsadihii waxa uu yidhi, yaa idiin sheegay beentaasi? waxay tidhi, waxaa inoo sheegay addoonkii xumaa ee Kaafuur. wuxuuna ku yidhi, midkaani naxariis la'aanta ahow, maxaad inoogu siraadinaysaa musiibadan aniga iyo qoyskayga? waxaan ballan ku qaadayaa inaan lafahaada ka bixin doono maqaarkaada. waxa uu yidhi, ma awoodid mudane taasi. dadkii oo dhan waa ay yaabeen. ganacsadihii waxa uu yidhi, oo yaa iga celin kara inaan saas sameeyo? Kaafuur waxa uu yidhi, waxaad isoo iibsatay adigoo og inaan sannadkiiba hal been sheego. tanina maanta waxay ahayd nus ka mid ah beentii. nuska kalena waxaan dhammaystiri doonaa inta uusan sannadka dhammaanin. ganacsadihii aad ayuu u xanaaqay, waxa uuna yidhi, waxaasoo dhan been kaamila ma ahayn miya? oo waxay ahayd nus. waan ku xoreeyey midkaani aadka u xunow, orodoo iga tag. waxa uu yidhi Kaafuur, haddii aad i xoraynayso anigu ma rabo. maxaa yeelay waxaan rabaa inaan dhammaystirto beenteydii. kadib waxaad i geynaysaa suuqa, waxaadna i iibisaa adiga oo sheegayo ceebtayda. ganacsadihii waxa uu yidhi, haddii ay saas tahay waaban ku dilayaa. waxa uu yidhi addoonkii, ima dili kartid, maxaa yeelay waxaan wada qorannay heshiis, wuxuuna leeyahay markhaatiyaal. ganacsadihii waxa uu laqay caradiisii, waxa uuna soo aaday halkaa iyo gurigiisii, isagoo ay la socdaan xaaskiisa iyo carruurtiisa, waxaana gadaashooda socday addoonkoodii Kaafuur. ganacsadihii markii uu gaaray guriga, waxa uu arkay gurigii oo burbursan iyo alaabtii oo la jijibiyey. waxa uu weydiiyey xaaskiisii, waxa uuna yidhi, yaa sidaan sameeyey? waxay tidhi, markii la ii soo sheegay arrinkaas murugada leh, waxaan jijibiyey guriga, waxaana iga caawiyey addoonka Kaafuur. waxa uu yidhi ganacsadihii, waxaani oo burbur ah iyo waxaani oo dhibaato ah, haddana waxa uu leeyahay waa been nuskeed. ka waran haddii ahaan lahayd been dhammaystiran, maxaa dhici lahaa? waxay tidhi xaaska, waxaan u malayn magaalada oo dhan inay saamayn lahayd.